sheekh dayib ziyaad adigoo dalka culimadii ugu waaweynaa ka mid ah waxaan doonaynaa su'aal muhiim ah maanta inaan ku weydiino qofka muslimka ah xurmadiisa iyo sharaftiisa oo meel lagaga dhaco oo laga been abuurto oo been laga sheego marka dambena dadku yiraahdaan maan moodayn saase wixii warkii oo dhan adduunkii lagu faafiyo maxaa dhibaato inoogu sugan oo diintu ka qabtaa sheekhow الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حج عمر أدبان كون سلامية وإن شاء الله تعالى جمعة مباركة horta qofka muslimka xaqiisu aad buu u weyn yahay ilaahayna aad buu u weyneeyay quraankana ilaahay tabaaraka wa tacaala in badan buu kaga hadlay ilaahay wuxuu inoo sheegay oo inna yiri amarna inagu siiyay waxa amarka ina siina waa ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ilaahay ina leeyahay war haddii war la idin keeno ama aad wax maqashaan ilaahay wuxuu yiri hubsada oo waxaas la boodina oo hubsada ma jira bise ma jiro waxa loo sameeyay waxa weeyaan ilaahay wuxuu yiri an tusibu qawman bijahalatin dad baa laga yaabaa si qalad ah inaad wax uga sheegtaan si qalad ah inaad u tiraadaan waxa uu sameeyay si qalad ah inaad u tiraadaan waxa uu la yimid wixiina aan ka jirin kadibna natiijadu waxay noqonaysaa qiyaamaha markii la isu yimaado ee la xisaabiyo ee maxkamad ilaahay la tago fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wixii aad tiraahdeen ee sheegteen ayaad aakharo ka nadaaman doontaan buu ilaahay yiri marka si aydan nadaamada ugu dhicin oo ilaahay hortiisa wixii aad tiraahdeen aydan ka qoomamaynin war waxa tiraahdaan hubsada buu ilaahay yiri waxa sheegaysaan hubsada buu ilaahay yiri wax kasta halboodina ayuu inna yiri ilaahay tabaaraka wa tacaala nabiguna sallallahu alayhi wa sallam arinta uu inoo sii sheegay wuxuu inna yiri nabigu alayhi salaam kafa bil mar'i kadiban qofka been waxa ugu filan ilaahay agtiisa iyo nabiga agtiisa iyo qiyaamahaba inuu qofku ka warramo oo la boodo wax kasta oo maqlo waxaad maqashaba hadaad la boodo waxaad maqashaba hadii aad faafiso waxaad maqashaba hadaad waxweyn aad ummadda aad gaarsiiso intaas been kuugu filan ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam xadiis kale wuxuu nabiga alayhi salatu wa sallam inooga digay waana xadiis muhiim ah nabiga alayhi salaam ribadu ka hadlay ribadan adduunka deemaanta wareerisay buu ka hadlay nabigu wuxuu yiri الربا 72 بابا ribadu waa 27 dambiga ugu yar waxa weeyaan buu nabiga kaleey salaam qofka oo hooyadii xumaan ula taga qofka hooyadii ka zinaysta waa dambiga ugu yar ee 27 ka dambi aha ee ribada ka dhasha nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wa salaam wa inna arba riba riba la galo ta ugu weynina waa qof muslim ah al-istitaalatu fi ird al-muslim bighayri haqqin qof muslim ah oo sharaftiisa been laga sheego magaciisa been laga sheego qof muslim ah oo karaamadiisa xumaan laga sheego qof muslim ah oo dadaalaya oo shaqeynaya oo muslim ah oo allayahay inaad ku been abuuratay 27 ka dambi ee ribada ku jirta way ka weyntahay buu nabiga sallallahu alayhi wa sallam waana xadiis saxiix ah marka waad qiyaasi kartaa 27 dambi oo dambiga ugu yari ay tahay qofka hooyadii zina ula tago xumaan ula taga waxaas oo dhan ka weyn qof muslim ah oo been ka sheegto ama qof muslim ah oo tirada waxaas uu yiri wuxuuna oranin ama saasuu raba wuxuuna rabin ama saasuu sameeyay wuxuuna sameeynin ayaa waxaas oo dhan ka weyn waxaan ku soo gabagabaynayaa xadiiskan Abu Daawud ku soo arooray Ahmad Nasuun musnadkiisa ku soo arooray Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala uu saxiixiyay wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wa salaam man qala fi mu'minin qof mu'min ah buu nabiga kaleey salaatu wa salaam qofkii ka yiraahda waxaasuu yiri ama qof mu'min aha ka yiraahda waxaasuu sameeyay wuxuuna sameeynin ama waxaasuu la yimid wuxuuna la imanin وحير النبي عليه الصلاة wa salaam hadalkuna waa hadalkii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam askanahu Allah radqat al-khabal ilaahay qiyaamaha qofka wuxuu dajiyaa wabi la yiraahdo radqat al-khabal saxaabadu way weydiiyeen waxay rasuulka ilaahay oo radqat al-khabal waa maxay qiyaamaha dadka ahlu naarta markii uumiga la geliyo uumiga naarta jahannam way fuuq baxaan waxa ka dhaca dhiig fara badan malax fara badan dhidid fara badan qurun fara badan ayaa ka data dadka ehlu naarka marka malaxdaas iyo dhiigaas iyo uuska ka data ehlu naarka marka dambe waxay isu bedelaan wabiyaashaas
qurmoonkooda iyo urkooda iyo kulaylkoodana naarta jahannama ayaa ka subxaanalaysata oo ilaahay ka magan gasho tira ilaahay waxaan ka magan galay webiga radqatul khabaal marka nabigu wuxuu calayhi salaatu illaahi wasalaam xadiiskaasi waa muhim aad buuna muhim noogu walayahay wuxuu yiri nabigu calayhi salaam qofkii qof muslim aha ka sheega ee yiraahda sidaasuu yiri mana una oran sidaasuu sameeyay mana una sameeyay waxaasuu la yimid mana una la imanin saasuu rabaa lamana imanin qof muslima qofkii ku been abuurta ee waliba adduunkana sii gaarsiiya wixina uu been yahay wuxuu nabigu calayhi salaatu illaahi wasalaam webigaas naarta jahannama ilaahay ay ka magan gasho ayuu ilaahay geliyaa waliba nabigu muxuu raaciyay calayhi salaam kana soo bixi maayo webigaas uumigaale ee qurunkaale ilaa uu ka soo saaro kelimadii uu sheegay qofkii kamana soo saari karayade yani ma samayn karayo kelimad jadiida marka cadaabka macnuhu waxa weeyaan wuu ku jirayaa un weligii ilamaa uu waxa weeyaan sameeyo wixii uu yidhi mana samayn karayo marka walaalayaal naftayda waxaan ugu dardaarmayaa dadka muslimiinta oo dhan aan ugu dardaarmayaa war waxaanaan leenahay aan ka fiirsanno war waxaanaan gudbinhayno aan ka fiirsanno oon hubsanno khaasatan baraha bulshada maanta khayrna wuu jiraa sharna wuu jiraa nabiguna calayhi salaatu ullahi wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka beenta lagu cadaabo qofka ugu darani waa qof intuu subax soo kalahay been la soo kalahay beentina adduunka oo dhan ay gaadhay marka been sheegto eed qof muslimaha been ka sheegto ee qof muslima wuxuuna samaynin aad ka tiraahdo wixiina aad ku faafiso baraha bulshada aad ku faafiso YouTube aad ku faafiso Facebook aad ku faafiso waxa weeyaan baraha bulshada ay wala isticmaashay gibi malaayiinka qof ee daawanaya dambigooda adiga leh xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam uu inoo yaala wax la faafiyo maanta aad baa loogu baahan yahay runta in la faafiyo wanaaga in la faafiyo diinta la faafiyo amarka ilaahay in la faafiyo in waxa weeyaan wax ummadda isu keenaya la faafiyo waxaas oo dhan ajribaad ka heli laakiin dhanka kale qofkii istikhdaama ama waxa weeyaan waxda ummadii kala geenaya ama been abuurad baa ku jiro ama buhtaan baa ku jirto ama iftiraa uu ku jiro ama waxa weeyaan waa inaka maqla ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waana nasiixa aan naftayda u soo jeedinayo iyo dadka walaaladayda aha ilaahay waxaan ka bariyaa jumcada aan joogna jumca barakeysan inuu inooga dhigo ummadeena ilaahay tabaaraka wa taala amni iyo iimaan uu nasiiyo amnigeena ilaahay inoo sugo wadankana Allah inoo barakeeyo shacabka Allah inoo barakeeyo xukuumadda Allah inoo barakeeyo muslimiinta dhibaatada haysata ilaahay inuu ka qaado aadna xaaji waan ku salaamaya iyo جزاك الله الخير وبارك الله فيك شيخ طيب زياد.